bulshada inta soo hor fadhiisatid raabaco iyo adiga waxan iga dhaxeeyo bulshada Soomaaliyeed ee muslimka u sheeg baabajayna wuxuu ku caan baxay hadduu haweenay ajnabiga ka fogaado cudurka busbuska oo daanyarada ku dhacay doorashada gaalanka ka dayanaa jiliinka gaalanka ka dayanaa jacaylka qaabka loo jilo gaalanka ka dayanaa xirashada gaalanka ka dayanaa dirisla cabdi timiisa soo fiiriya qofki isqariya ee xumaanta la dhuumto nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam hadaba gelina ma daba galayno laakiin gabadhi iyo wiilkii xumaan bulshada la soo hor fadhiisto waan magacaawayna yaa lagu daalin mada yuu dhikar kugu dhicin amba soo qor shiiqo waa fiicanta laakiin ataaka jooji ataak wax la yiraahdo ma jiraan in adkadiisu wuxuu leeyahay sheekh Shantaay annaka ma noola soo diray sheekh Shantaay waxa loo soo diray in alaala inta fool xumo baraha bulshada la soo fadhiisato oo dirisla cabdi oday u yahay iyo baabajaya loo soo diray ruuxu markuu xumo السلام عليكم كسو دوادا channelka Somali Home haday tahay markii kugu horeysay fadlan ha iloowin subscribe-ta si faa mar walba oo la socota video-yaasheeda laga yaabaa sheekhan inaa meelo badan ku aragtay xagga TikTok YouTube-ka waa sheekh maalimahan soo caan baxay magaciisuna yahay Sheekh Shantaay wuxuu ku caan baxay oo dadka badan u soo jiiteen waxa waaye wuxuu banaanka u soo saaraa dadka social media dhaqan xumada ku wadaan inta badan sheekhan wuxuu soo caaya uu banaanka soo saaraa dadka caanka ah kamid tahay Samiixa Khaliil Maariish Dirisla Cabdi iyo Qurux ku dhigle xitaa baabajay ayaa la arkay asoo kor ka soo taawanayo sheekhan qosol ayuu kugu dilayaa Dirisla Cabdi wuxuu u bixiyay buuma weyn qof walba magac ayuu dhalinyaro badan ayaa sheekh raacsan kuwana way diidsan yihiin oo waxay la dagaalsan yihiin sheekhu haddaad aragto wixii oo la dagaalsan yihiin waxa way sheekhu qof khalad sameeyay haddaa aragto oo arkaysa dhaqan xumo wado caadi private ahaan oo la hadal si gooni oo la hadal ee public ha ka caynin dhalinyarta intuu badan way necab yihiin markii public intii loo soo fadhiisto la caynayo inta u badanna xataa haddii dembi sii sameynayeen way sii galayaan oo way sameynayaan dadka qaarna way ku faraxsanayaan oo waxay lahaayeen dadkan way cabsan doonaan oo sheekh karbaasho ayaa u soo baxay inta u badan culimo lama heli jirin social media dhex gasho oo dhalinyarta gacanta soo qabato lama arki jirin waxa khaladaanta public ka sheego umayna badneen laakiin sheekh waxa soo baxay masaajidka dhexdiisa baraha masaajidka ka soo sheegayo dad weyn oo magacyo leh oo social media magac weyn ku haystaan ani ahaan hada ka bixiyo ra'yigayga ani ahaan ma fiicna sheekhan wuxuu sameynayo dhalinyarta si loola dhaqmo si loo waaniyo isku mid ma aha dadka waaweyn abooyinka saa u waaninayso iyo dhalinyarta saa u waaninayso isku mid ma aha dhalinyarta inta u badan haddaa rabto inay wax ka fogaadaan ay iska dhaafaan wax si private ahaan oo wac saan waa iska dhaaf haddaad iska dhaafi wayso dadka ayaan kugu ceebaynayaa laakiin intaad soo fadhiisato public inaad cayso oo xitaa magacyo qaar u bixiso ma fiicno sababta hadda magacii loo bixiyay uu sheekhan u bixiyay mise ayaa baraha qabsada bulshada for example Samiixa wuxuu u bixiyay Raabica waxaa laga wadaa intuu ka keenay qof walba magac ayuu oo la baxay waan ogsoonahay maanta qof walba u shaway ka dhacdaa oon ilaah ahayn xitaa sheekhan qof walba aragto maanta ha ahaado culimo ha ahaado shaydaan qof walba u shaway ka dhacdaa qof walbana maanta ma jeclo
dembigiis inay public laga soo dhigo. Way ogyihiin waxay sameynayaan ayaga. Dadkan waa dad diin bartay, waa dad family islaam ka dhasheen. Way ogyihiin waxay sameynayaan. Dadkan istataawanayaan ayagoona isqabin inay xun tahay way ogyihiin. Maanta 2 jir ma aha, way ogyihiin. Ma leenaho waxay sameynayaan ay baraha bulshada ka sameynayaan waa wax fiican. Laakiin waxaa ka xun nin culimo ah intuu masaajid soo fadhiisto intuu ka sheekeyn lahaa waxyaalaha dhibaatooyinka ay ummadda Soomaaliyeed dadka masaakiinta haysato laga hadli lahaa, asxaabta looga sheekeyn lahaa, dhalinyarta masaajidka asaga u imaatay diinta islaamka sii faafin lahaa. Mooho inaad dhalinyaro social media ka heesaan qiimo weyn u yeesho masaajid Ilaahay. Qiimaha masaajidka dadka qaar ma aqaanaan miya? Laga yaabo culimada i daawanayso mise arki doonto videogan. Sidan sheekhan muu ku quruxsan yahay dhalinyaro ayaga markii hore fudud oo la arkay wixii sameynay inay fiicneen. May fiican tahay in la sii fogeeyo, miyay quruxsan tahay in la sii fogeeyo. Soo ma quruxsanaan lahayd sheekhan si sir ah si ayar inuu u soo dhaweysto sifee waxaan iskaga dhaafaan. Shaydaan ayaa duufsaday heestan iyo waxaan horta qof maanta la dhihi karo waa awliya 100% saxsan yahay ma jiro. Qof walba oo dambi lama jiro. Qof walba dambi uu galay wuu ku jiraa. Niman Allah ahaan usha kama dhacdo. Dhalinyar intii la soo istaago masaajid Ilaahay public lagama caayo. Noon ogsoonahay ayaga dad badan ayaa ku xiran maanta. Sheekhan hadduu rabo inay iska dhaafaan ma fiicno saan uu sameynayo. Si walbo qof dambiilo u yahay ma fiicna baraha bulshada mise meel dad ay ku badan yihiin inaad soo istaagto eebahooda iyo wixii sameeyaan ka sheegto. Qofka asaga wuxuu noloshiisa ku sidan tahay, noloshiisa tahay ma ognaho. Waxaan ka aragnaa shaashad waxay yihiin ma garanayno. Soo qof inaad public ku cayso sheekha waa laga fiican yahay.